السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوابة channel كايغا مقعيغانا قدانين قرنين وفاضو ناصر علي وإذا كسو دوين يا مر لبادي مر صدحات channel كايغا أهلا وسهلا. انتا كديب سلام كديب وحا آن مانتا وموضوعي ugu horeeyay ee sanadka 2026 ka soo diyaariyo marka mawduuca maanta ay diisido waxa weeye sida hooyooyinku u hagaajin karaan maskaxdooda sanadkan cusub. marka sidee baan maskaxdeena u hagaajin karnaa 5 qodob oo idin falaqayn doono oo maxay insha Allah idinka caawin doona inaad sanadka la jaan qaadaan oo maskaxdeena iyo shucuurtiina iyo maxay heeday ilmihiina bay idinka caawin doona. marka 5 qodobka koobaad waxa weeyaan soo saarista miisaanka sanadkii hore wixii aad qabatay ayaad sidaa u soo eegaysaa iyo wixii aan ku qabsoominba. ka labaad waxaad sameynaysaa dooro hal eray oo sanadka ah oo naftaada ku dhiirigelisid. ka saddexaad waxa weeye deji yoolal ama goolal hooyo saaxiib ah inaad hooyo saaxiib aad noqotid yacni ilmahaaga u noqotid oo iyo naftaadaba. ka afaraad waxa weeyaan ilaali tamartaada si aad tamartaada u ilaalin lahayd. ka shanaad ee ugu dambeeyana waxa weeye naftaada la dabaaldeg mar kasta iyo maalin kastaba. shanta qodob baan markaa kusoo koobaya maanta topigeena aan idin dhigi doono hooyooyinka. waxaan galaynaa waa sanad cusub. waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo wax muhiim ah. adiguna waxaad u qalantaa dib u habayn kaliya ma aha gurigaaga ma aha howlaha caruurtaada ee waxa aad u baahan tahay inaad dhisto waa maskaxdaada qalbigaaga iyo tamartaada. haddaba maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago sida aad maskaxdaada uga bedeli karto si fudud oo dhab ah oo ku habboon nolosha hooyonimo. number 1 soo saarista miisaanka sanadkii hore. waxaan ka wadnaa markaa ka hor intaanad ku darsan goolal cusub dee wixii hore maxaan soo qabtay neefso yacni neef qaado. isweydii maxaan oo hadda aniga ii gaar ah. malaha waa dembi, malaha waa daal, malaha waa cadaadiska waad ogolaatay inaad si cusub u bilowdo. hooyooyinka naftaada la hadlaysaa macnaha waad ogolaatay inaad sanadkan wax badan iska bedeshid ood hagaajisid naftaada iyo maskaxdaada tamartaada wax kasta oo positive oo naftaada khusaysa si aad ilmahaaga u hagaagsan ugu qabatid ugu caawisid. qodobka labaad isaguna wuxuu leeyahay dooro hal eray sanadkan. 10 gool ma aha liis dheerna ma aha hal eray oo hagi doona go'aanadaada. midba ka dooran kartaa malaha eraygaagu waa nabad malaha waa anshax malaha waa farxad. eraygaas ha noqdo tilmaamahaaga. saddexdaas mid ka dooro. hadda saddexdaba wada qaadatid way kuu fiican tahay adiga. aan kugu soo celiyo mar kale malaha eraygaagu waa nabad malaha waa anshax malaha waa farxad. wixii kaa dhiman is og adaana ku darsan kara oo maxay hagaajisan kara maxay ahayd saddexdaas midka kaa maqan isleedahay uu kaa maqan yahay. marka qodobka isaguna saddexaad deji yoolal hooyo saaxiib ah. macnaha waxaa ga wadnaa yacni goolal dejiso hooyo saaxiibana si aad noqotid ama naftaada la noqo ama ilmahaaga la noqo. yoolkaagu uma baahna inay u ekaadaan kuwa qof kale uu leeyahay. koobaad horumarka hooyadu waa kala duwan yahay oo qof walba qofka kale uu ka duwan yahay. ka labaad hadafyadaadu waxay noqon karaan kuwa yaryar degan oo weli awood leh. marka dadku si u kala duwan yihiin qof walba wixii ka anfaca ayuu ka qaadan karaa. tusaale ahaan subax kasta 10 daqiiqo ayaan siinayaa naftayda. si naxariis leh ayaan naftayda ula hadli doonaa oo yacni naftaada mar walba canaanatid wasla hadhaysaa. salaadayda iyo cibaadadayda waan adkaynayaa. waxaan weydiisan doonaa caawimaad markaan u baahdo faamilkayga iyo asxaabtayda. kuwani waa yoolal dhab ah ama goolal dhab ah. kuwani waa guulo dhab ah. yacni waxaad iska
samaysanaysid maaha, waa wax kaa go-an oo go-aan adigu aad gaadhay, naftaada la gaadhay. sanadkaa cusub insha allah wixii hore ee soo tegay wuu tegay, laakiin sanadkan cusub ee imika aan galnay wixii aad naftaada ka bedel lahayd iyo gurigaaga, caruurtaada, dee waxaasoo dhan ba adigay kuhoos imanayaan siaad u qaamin lahayd, u hagaajin lahayd. adayna kugu xidhan tahay, hooyaday ku xidhan tahay waxaasoo dhan. qofna kuma xidhna, family kuma xidhna, asxaab kuma xidhna, walaal kuma xidhna, maxay heeday odaygaaga kuma xidhna, ilmahaaga kuma xidhna, adiga kugu xidhan tahay. waxana dumarku ka bilaabmaa kuna dhammaadaa inaad naftaada la hadhid iyo inaad naftaada kor u qaadido, dee si aad hooyo caafimaad qabtaa, reer caafimaad qaba iyo ubad caafimaad qaba kurisa. ka afraad, ilaali tamartaada. qof walba ma mudna inuu helo maskaxdaada ama nabadaada. qodobka koowaad, sanadkan waa inaad tiraahdo maya adigoon dembi dareemin, yacni wixii ku dhibaya ama aanad raalli ka ahayn maya waad odhan kartaa adoo dembina dareemin, waanad ka jawaabi kartaa adigoon iscaburin. ka labaad, dhehaa waxa ku quudiya ama aad ka helayso wanaag ee adigana markaaga kuu fidinaya caawimaad. wixii kasta eed arkaysid inuu yacni waxtar leeyahay, ama reerkaaga ha noqdo, ama familigaaga ha noqdo, ama walaalaha ha noqdo, ama asxaabtaada ha noqdo, hadduu waxaas waxtar kuu leeyahay dee haa waad odhanaysaa oo adigana markaaga aad ka helaysid. ka saddexaad, tamartaada waa aasaaska gurigaaga. hooyo bilaa tamara ama bilaa ii sheegay ama mar walba isku buuqsan ma korin karto, reer ma hayn karto, ubad ma hayn karto, nafteeda xataa ma daryeeli karto, waayo way isku buuqsan tahay, tamarna ma hayso ay waxaan oo dhan ay ku hagaajiso. wakaa halkaa qodobka afraadan kaga baxnay. kii shanaad baan u galaynaa marka isaga. ka shanaad wuxuu ku leeyahay isaguna naftaada la dabaaldeg maalin kasta. gabadhay ama hooyoy, naftaada ma la dabaaldegtaa maalin kasta? de waa maya, haddaan hooyo Soomaaliyeed nahay. mar walba culays bayna saaran, mar walba fikir bayna saaran, aan waxba ka qaban karayn oo ii sheegay habeen iyo maalin aad walwal ku seexaysid, kusoo toosaysid. dadka qaar waxay isku haystaan waa biil, dadka qaar waxay isku haystaan waa muxuuha nidaam xumo, dadka qaar waxay isku haystaan akhlaaq daro. adigu xaaladuhu way badan yihiin oo dhibaatadu way badan tahay, laakiin mar kasta ood fursad hesho naftaada la dabaaldeg oo wixii wanaageed qabatay, wixii kuu qabsoomay, ilaah waxa yaryarna may ahaato, la dabaaldeg naftaadoo raalli geli oo marxabaysiiyo. dewaka adoo baadhi weyn samaysanayn xitaa waxaad samaysan kartaa muxuu haaye farxad yaro kooban, dee xitaa gurigaaga dhexdiisa kaba soo qaad. imika maalin kasta waa inaad hal shay oo aad si fiican u qabatay waa ii sheeg dabaaldeg. cunto haddaad karisid waad dabaaldegaysaa, waxaad odhanaysaa maanta cuntaan kariye. haddaad shaqo qabato hal shay aad iska dhammaysay maanta shaqada, ama guriga hagaaji, ama shaqo kalead kasoo shaqaysay, ama xafiis taga, ama business adigu aad leedahay ka shaqee, ama ii sheegay sarirtaada ugu yar haddaad hagaajisid, maanta sarirtaydaan hagaajiyey. haddaad naftaada aad soo maydhato si soo hagaajiso, self care samaysid, u dabaaldeg. waxaad ilmahaaga gelisay muxuuha ilmahaaga haddaad cashar u dhigtid oo kale, ama hadal wanaagsan aad u sheegtid, u dabaaldeg. haddii aad ilmahaaga hab siisid maanta, ama dhowr jeer ama hal mar xitaa aad siisid, u dabaaldeg. waxaad tira maanta ilmahayga habbaa siiyey. intaasi oo dhan waa dabaaldeg, wayna ku farxad gelinaysaa adiga naftaada. waxaas odhanaysaa wax weyn baan qabtay dee maanta, xitaa waxa yarbaa wax weyn kula noqonaya haddaad naftaada raalli ka tahay. hooyo nafteeda u dabaaldegta ayaa noqota mid aan la joojin karin, macnaha mid yacni naftaada dad wax fiican u qabatid, xitaa waxa yaraad ku ugu mahad celisid, yacni wax kasta waad qaban kartaa, waxa kaloo dhan kuu fududaan karaa. waa kaas marka shantaa qodob halkaas kusoo dhameeyey. waxaan ku xidhanaa mawduucan maanta 4 qodob isagana. sanadkan waxaan rabaa inaad tirahdid, sanadkan waxaan rabaa inaad dib u habayso maskaxdaada si jacayl ku jiro, mana aha cadaadis ama culays ku saaran. adigoo farxad ku jira waa inaad naftaada la dabaaldegtid, ood maxay heeday ood wax kastoo ku farxad gelinaya aad u samaysid, naftaadana jeclaatid siday doontaba ha noqotee. qodobka labaad, kama bilaabaysid eber ama wax zero aad ka bilaabaysa ma jiro. waxaad ka bilaabaysaa waayo aragnimo, xog iyo adkaysi. ka saddexaad, hooyooyinka sanadkan
waa kaagii oo waa inaad si ujeedo leh u kacdaan oo is dhiirigelisaa, naftaada dhiirigelisid. ka afaraad, aan sanadkan cusub u galno soo waadixa, kalsooni ku jirto, iyo inaan naxariis nafteena siino. Nafteena inaan u naxariisano, nafteena inaan culays kasta aan saarno maaha, waa inaan nafteena u naxariisano oo culayska faraha badan ee ay sheegaysa saarisid aad iska kala yaraysid, adoo xitaa ku jira aad naftaada u dalbaadegtid, farxad gelisid. aday kugu xiran tahay inaad samaysatid waxaasoo dhan. waa kaas qodobkaas iyo ii sheegay topiga maanta saasaan kaga baxay. insha allah waxaa idin rajaynayaa weega dambe iyo insha allah topic kaloo fiican isagana. fadlan ha iloobina inaad subscribe saartaan, share and like and comment fiican aad iga bixisaan. aad baa idinka mahad celinayaa, aad baa idin salaamayaa, waad mahadsantihiin. salaama, maalin wanaagsan.